كمدة قبل يفوت كدع مايو والله إننا نقبلين وإننا نطلق قادنين أريد عين كاسة هذا بدولة الصومال الله وبركاته داود الكسور وهذا وركان عاو على كداورته وركان عاون وقياس في أنا وعبد الله سعيد فارح يعني للسعودي دونا وركان قرب وين وحكى من نقد دونا مدحوينها الصوماليلان موسى بيحي عبدي أي قتل مدحوينها وحاو كقابلي ضد وينها رير هرجيسة إسقوا مدحوينها أي كم وقتي إن هريرها أي كتاجناين قال كيف خاص كاه إلا يقانو إلى هذا مدحوينها dhinaca kale odayaasha ka soo jeeda gobolka Gabiley ayaa sheegay inaanay u dulqaadan doonin cid kasta oo sheegta inaanay Gabiley doorasho ka dhacaynin iyagoo oo ballan ku qaaday inay dagaal la geli doonaan dadka reer Awdal ee sheegaya inuu saami ka maqan yahay haddii ay Awdal soo hadal qaadaan qodobada iyo qodobo kale ku soo dhawaada daawadayaal intaasi waxay ahayd warka madaxdiisa ee makana soo fisan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa qasiga madaxtooyada maanta wuxuu ku qaabilay dadweynaha reer Hargeysa iyadoo dhallaanka dumarka iyo ragguba ay goobta soo gaadheen madaxweynaha ayaa hareerihiisa waxa ka muuqday ilaaladiisa khaaska iyadoo la garanaynin ciduu iska ilaalinaya madaxweynuhu gaadhka ayaa markii hore ku soo baaray afaafka hore ee madaxtooyada iyadoo markii dambe markuu gudaha soo galay ayaguna ay dhinacyada ka taagnaayeen tan ayaa u muuqanaysa inay tahay madaxweynuhu mid uu kaga baqanayo dadweynaha magaalada Hargeysa iyadoo oo la garanaynin ciduu ka cabsida uu ka qabo madaxweynaha Biixi ayaa la rumaysan yahay inuu yahay nafta aad u jecel iyagoo oo dadka askartan la garanaynin ama security-giisa la garanaynin cidda ay gaadhka ay ku hayaan dhinaca kalena odayaasha Gabiley ayaa sheegay inaanay u dulqaadan doonin cid kasta oo sheegta inuu saami ka maqan yahay iyagoo oo ku duray reer Awdal sheegayna reer Awdal inaanay marnaba soo hadal qaadi karin inay u baahan yihiin in saamigooda la siiyo xaq ah iyagoo oo reer Awdal ku eedeeyay inay sheegteen Gabiley odaygan oo nagu soo boqday xafiiska qiyaas TV ayaa inta sida kale wuxuu sheegay inaanu dulqaadkoodu intan uun dhaafsiisanayn isagoo madaxweyne Biixi ugu baaqay inay gacanta ku dhigaan cid kasta oo doonaysa inay khalkhal dalka geliso hadaladiisina waxa kamid aha sidan waxa halkan ka soo baxaya baryaan rag gobolka kala joogo Gabiley food ka dhici maaya leh aqbali mayna adeer kelmooyinka noocaasa ma yeelayno tabashaan naga maqan bay leeyihiin war Gabiley wax la tawdad ma waa gobolka xorta ee madaxa banaan leh ee dadkiisa degan yahay nin kale isagoo jooga xaafad booraba kamid ah Gabiley food ka dhici maayo wallahi naan aqbalayn oo naan u dulqaadanayn harayada caynkaas ah ee dambe madawladda Soomaaliland waxaan u sheegaynaa inay wixii qaldan qabato cidda wax ka tabalasana u jawaabto waxa qalad ku socdana qabato war anagu qalad kuma socono tabashaanu leenahay waxbaa naga maqan waa la wada ogyahay Awdal bay naga maqan tahay wax kale naga maqanoo maroodi jeex bay naga maqan tahay waxaan u doonaynaa sida wax loo doono oo aanu kaga hadlaynaa oo nu garteeda ku laasanaynaa laakiin oran mayno food ka dhici maayo war Gabiley food wuu ka dhacayaa waa laga footaynayaa dadkii lahaa waa ka footaynayaa waa kuwa ku tukanaya jooga ninka Gabiley wax ka tabaraya ha yimaado laakiin ninka Awdal xaafad ka mid ah jooga ee food ka dhici maayo uma dulqaadanayno ma yeelayno ma aqbalayno ka qaadan mayno mar dambe anagu waxaan u sheegaynaa dadka iyagu inay nabadgelyada ilaashadaan inay heegan u ahaadaan difaaca gobolkooda iyo dalkooda iyo diintooda iyo dadkooda inay nabadgelyo shacabkooda siiyaan baanu ku adeeynaa ku waaninaynaa laakiin wixii la soo doonto waanu iska celinaynaa dawladuna markhaati ha ka haato assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu warkii caawad ka daawanaysan qiyaas TV intaas ayaan kusoo gogaynaa dhammaantiin waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo badbaada Allah waxaanu leenahay qiyaas TV ha moogaan subscribe ta like ta share ta noogu deeqa السلام عليكم.